yiri dadka kale doqaad iyo shalay dhagaxa tuureen si calanka toolmooli waa taarahaygii singa turubiyo weyn iyo darmaanta la tabaynaysa tobanaan kun baa iyaga lumayo tabaadiya weyna waa u taagnahay inuu taaka leeyin mudan aad iyo aad baan idin salaamayaa marka hore ilaahay baa mahad leh waxaan kaloo u mahadnaqayaa bulshada reer Laascaanood wiigagii ugu dambeeyay ku jirtay halganka cusub oo inoo suurto gelisay caawa inaynu halkan isugu nimaadno oo xorriyadeena iyo afkaarteena iyo hadafkeena aynu isu gudbino aniga markii magaalada ugu dambeysay sida tan suurtagal kama ayaan ahayn sida tan waxay suurtagal ku noqotay inamo iyo rag inta tan saaxiibadooda dhiigoodii waxaan aad ugu mahadnaqayaa habeenkii ugu dambeysay dhacdadii xansuuqa ahayd ay dhacasay dhalinyaradii qoryaha qaatay xamili kari weyday wixii jiray aan filayo qayb meesha joogtay iyo kuwa maqanimo inay ku jireen ee ka dhiidhiday wixii dhacay marka aan mawduuca guda galo waxa weeye mawduuca kale waxaad ogtahay ma kuu sheegaa waxaan idinla wadaagayaa wax aad intiina faraha badan ama aad ka dheregsan tihiin ama aad iga xogroon tihiin waxaanu u baahanahay inaynu isweydiino caalamkana u sheegno dariskana u sheegno meesha aynu ku soconno iyo waxa aynu diidanahay waxa la sameeyay halgankeena kan dad fara badan inay suura xumeeyeen waxa ay ugu kalifay caawa inaan halkan soo taagana waxaan rabaa inaan dad fara badan oo loo suura xumeeyay halgankeena iyo hadafkeena inaan u bayaamiyo waxa aynu diidanahay iyo meesha aynu u soconno marka ugu horeysa dad fara badan baa waxay ku hadlaan marka xaaladan oo kala jirto iyo kacdoonkani inaynu nahay dad mucaarad ah oo ka cabanaya systemka Hargeysa ka jira oo doonaya maslaxaad kuraas wasiiro agaasimayaal saraakiil mashaariic iyo lacag waxaan rabaa inaan beesha caalamka dawladda Soomaaliya maamul goboleedada qabaayilka inta midna aan intaba u sheegno inay dadkani ay waxa doonayeen oo booska ugu sareeya ee Hargeysa Muuse Biixi ugu fadhiyo iyo ka ugu hooseeya hadii reer Laascaanood la siiyo ay waxa doonayeen reer Laascaanood waxay doonayaan sharafta Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed xuduudaha Soomaaliya iyo diinta iyo islaamnimada iyo qiyamka Soomaalida iyo toodaba inay ilaaliyaan arinta ay doonayaan waa arin soo jireena oo 100 iyo dheeraad sano ka hor iyadoo Soomaali ay gaala ku soo duushay ay isu taageen oo intan awoowayaashooda ay ka dhiidhiyeen iyadoo ay cidina ku dhiiran karayn inay la dagaalanto gaalada cadcadeed ee wadanka ku soo duushay ee dubaabaadka sidata oo ay ku dhinteen malaayiin qof oo aan ka garanayo gabaygii ninkii loo jiray Bidda Faarax Gaas wuxuu yiri dadka kale doqaad iyo shalay dhagaxa tuureen si calankan toolmooli waa taarahaygii singa turubiyo weyn iyo darmaanta la tabaynaysa tobanaan kun baa iyaga lumayo tabaadiya weyna waa u taagnahay inuu taaka leel mudan dadkii waxa soo maray oo dhashii shuhadada oo dhashii daraawiisheeda maanta oo 2023 in lagu yiraahdo qof ku yiraahdo aan halganka hore waxba ku lahayn ana maanta idin fikraya ana talinaya ana wax garanaya ana go'aaminaya ana wax soo jeedinaya idinkuna yeesmaan baad idin noqonaysaan dadkani arinta ma aqbali karaan waa nasiib darro
waxaan u sheegayaa qabaayilka Soomaaliyeed habeen dhaweyto waxaan dhageysanayay odayaal shana oo xamar ka hadlaya oo yiri hawiyaanu nahay oo anigu aan garanayay shan bay ahaayeen waxay irir baanu nahay dhulbaantana waa daarood baa u hiilinaya anaguna isaaq baanu taageeranaa arintaas waa arrin nasiib darraa marraba odayaasha inaan u jawaabo shan bay ahaayeen 5 milyan oo hawiya oo aqoon-yahan leh oo cuqaal leh oo ganacsato leh oo culimo awdiin leh baa hadafkiina taageersan Cabdiqaadir Boos iyo dhalinyarada bulshada ugu horeyso waxaan rabaa in yar oo taariikh ah inaan halka kan u mariyo waagii SSDF ay baxday ayaa waxaa dhacay ninbaa wuxuu damcay inuu isku diro Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiso madaxweynihii qaranka ahaa iyo jabhadii SSDF nin reer waqooyi reer burcaab ahaa abwaan buu ahaa deedna gabay buu mariyay uu isku diray jabhada iyo madaxweynaha deedna nin maruuriyooday la yiraahdo ayaa arintii maqlay deedna gabay buu kaga jawaabay gabaygiisa waxaa ka mid ahaa baalka ma jirtay siyaad waxay yihiin way iska moobtahay mabdaa iyo siyaasada xun iyo maamulka nacay inkastoo aad maamustid aad murug ku taageerto inaan tolnimo waa margiye meel wada jooginaan muxuu noo kala dhamaan waa wax ka maqan waa midhii aw jabarti iyo midhaashina laakiin waxaan rabaa ragga doonaya inay halka kan ay qasaar ay suura xumeeyaan halkan kani ma aha halkan isaaq iyo u dhaxeeya dhulbaante ma aha halkan u dhaxeeya isaaq iyo daarood ma aha halkan u dhaxeeya Soomaali qabaayila siyaasiyiin waqooyi joogta oo dadka dhiigoodii xalaashaday oo dhibaato badan u geystay oo raba Soomaali inay kala gooyaan oo xasuuq fara badan gobolkan u geystay oo aynu garanayno dhibta gobolkan ka jirta iyo qaabka dadka kan loola dhaqmay iyo hadii baydankeeda iyo qaabka lagu wado inay Soomaaliya ay noqoto ayay dadkani ka halgameen kana dagaalameen kana xun yihiin aan ku noqday gabayga wuxuu ahaa ma jeerteen siyaad waxay yihiin way iska moogtahay ninkaas aad buu wuxuu dabcan jabhada iyo isugu dira erigaabo waqooyigeeda ilaa Itoobiya salkeeda 700 oo kiiloomitir bay xad kale yihiin isaaq oo habar yoonis galxajis iyo habar jeclo ah iyo dhulbahaante 700 oo kiiloomitir bay xad kale yihiin system baynu isaynaa halganka aynu ku jiro wax garadkooda iyo qof kasto suurtagal oo aqli caadi ku jiro beeshay saaqi wuxuu kaga jiraa si caadi ah ugu jiraa oo san qarsanayn qofka raba inuu suura xumeeyay isaaq iyo dhulbaanta dagaalamaya dib fara badan buu ina ku yahay waxaan rabnaa inaanu cadeyno inaan wax isaaq leeyahay wax dhulbaanta dagaalamaya systemka dadka xasuuqaya ee Soomaali kala goynaya ee cid ay doonto ku jirto inay dadka kan ay diidan yihiin daarood Ismaaciil iyo nimanka la yiraahdo isaaq waxa laga yaabaa intii dadkan meesha fadhida mid ay dhaleen iyo mid ay aabihii dhaleen iyo mid carruurtiisa dhaleen inay isugu jirtaan qofka isaaqna wuxuu aaminsan yahay hadduusan daarood wax la wadaagin inuu gabigiisa wax ka xun inuu dhamaystirnayn halganka nooca kana boqor guur madow inaad daawataan ma aqaane wuxuu hadhowtay niman hore dhahayn hebel yiraahdaan inta uu kaga hadlo cid kaga hadli karto daarood iyo dir midna ma jirto waxaan rabnaa inaan garba uga helo garxajis arab oo inaga ina dhalay habar jeclo hawiye daarood dig iyo midif intaba inaan qarannimada Soomaaliya oo aynu ilaalinayno aynu garba uga helayno doonayno iyo taageero waxaanu rabnaa systemka kan inaynu inaguna iska kaxayno kuwaana aynu ka xorayno waqooyi jooga oo tolkeena
تامر كان أنت كجبدبو ما أنت سياسة لينكم مسلحه ووقوي تالله وهرجيسة تالله وأنا وحبو درسناي dad baa sooyaalka iyo taariikhda been ka sheegay waxay 91 kiiba wax la isku darsaday anagu 91 kii inta asaanu laakiin hadda ma ana dhan cirkana kama ana soo dhicin dagaaladii ugu xumxumaa ceerigaabo jiidali meesha la yiraahdo dogoble jidbaale damalla xagare intaba waanu taagnay dagaalkii ugu xumaa marka la leeyahay hadii bayda kale nabad baa dhacdo dad baa la nabadeeyay xilligaas uu dhacay dadkana way u suurtoobi weyday beeshan SSC jamhadii SNM inay qabsato awood weyn ay isaga celiyeen dad baa waxay yiraahdaan taariikhda ka dhacay oo raba inay taariikh ku samaystaan xilligaas aanu nabad ka shaqeynado burca la isugu tagayo dawlad baa la dhistay jamhadii SNM baa burca timi golahoodii dhexe oo boqol wax ka dhiman yahay 99 ayay waxay u rogteen baarlamaan u rogteen waxaba yaraatee beesha artiya oo ku jiray ma jirin wixii sida ahaa niman inaga oo siyaasiyiin oo dawladda dhexda xamar ka yimid baa hargeysa tagay nimankaas asay u soo baqtay afuufayeen maalinba meel u keenayeen bay halkan inoo ku keeneen awood kuma imaan tafaraaruqeena ku yimaadeen aad baan waxaan uga xumaa qofka dhulbaanta u dhashay oo ilaahay ka dhaliyay oo ilaaha waana haysta waa daciif mana jirto leena mana qabsan karo ilaahay inuu kuma tala gelin haddaynu tashan weyno iska daa bini aadane wax kasta way ina maamulayaan wayna ina ku shaqaysanayaan waxaynu nahay dad horena u talin jiray una soo taliyey maantana tashan kara talinayana waxaynu rabnaa meesha aynu ku soconno waynu garananaa waxaynu Soomaali ka dhex ahaan jiray rabnaa inaynu ka dhex noqono ma rabno dadkan in taariikh looga dhigo gaal baa maalin wuxuu istaagay garow iyo lascaan dhexdooda laguna dilo maanta waad ogtihiin halka kan naxariista Ilaahay iyo hawada qura ka bilaasha caafimaadku waa lacag oo waxbarashadu waa lacag oo biyuhu waa lacag oo amni ma haysataan oo intii habeenkii leedin dilo madaxa leedin soo duurtaa subaxii marka dareenkiina cabirtaan leedin xasuuqaya waxa meenu qaadan karaa inaad waxa ka baxdaan umana taagliidin umana toliidin umana dawladliidin waxaanu rabnaa talada inaynu isku xidhanno haddaynu nahay beelaha halka kan yaala anigu ma oran reer qura magacii ma rabo inaan sheego goboladaysa si dad fara badan baa yaala laga yaabay reer kale inuu majority u yahay halkan kan uu hoggaan ka yahay waxaanu rabnaa inaynu isku xidhanno qof walbana talada wixii qaybtiisa laga siiyo cidna duulimaad kuma ahin waxaanu rabnaa waxa kan aan maslaxada ahayn oo diinta ahayn oo dhaqanka ahayn oo dhibaatada inta leeg dadka u geysanaya qaab allaale qaabkii aynu wadankeena uga kaxayn karo inaynu uga kaxayno nagu dhaqan baanu nahay saraakiil ciidan ma ahayn ciidanna hogaamin mayno laakiin talada waanu soo jeedinaa kana bayri mayno علي wuxuu yiri tuurihi caduun iyaanaw taliya ceelkii hadalkii la tuugaysan jiray waa ka toganaa ninna ima tilmaamay ana tay ku meel mara tiraya kuma seexdo iyo taariikh ceerin halkan waxaan rabnaa inaynu inagu ka talino waxaanu rabnaa inaynu iswadano kuwa aqoonyahana sharaf le karaamo le ilmaadeeradeena tolkeena ba hargeysa laga soo riixaya mar rabno inaynu caayno mar iyagoo ina ka maqan wax fara badan baa ina ka maqan rag baa xamar jira rag baa garowe fadhiya rag baa duurka ku jira inteenaas waxaynu u baahanahay taladeenu inay wadaageen noqoto aynu talada isla helo waxaan idin sheegayaa
ركبة حمدي فدي إنجا هي ركضوا في الوقوية شلي تاي هذين وحين ذلك كان نجا ودارني اللي بانده ديبانه لما تنكي عشاء اللي ذن سوقي رجل يدمر الميت قال كاي لي شوفوا ما ينورن أبي جماعة يبرخت بطول بكال لي يقولون تشوف كبارا ما أنت واحد يعني أنا قاعد مسؤول هو شفك قراعيان عبد الرزاق خليفة بان دقيستي واحد الله يوصلنا والله الله يينا كلو قلها كتير أدي بيد كذا ليه عبد الرزاق خليفة قدوميها كي هذا وفرشنيا ناس اللي ما قالوا حلي هذا يضع أي ساعة هاي وحنولان هاي رجع أنو طلقنا هاي السياسيين تا حمد فديا الماضي رجال وحنو دوننا تنينا أتكتها لسان إنا إنو وضع تشنو لكن الله بكون يلواتن يصدق هذا إنا كم هدي أسلم نقول هاي سان والله يلي من صورة الله ما kuwa hargeysa jooga oo aad wada garanaysaan oo aan magaceedu koobi karayn tan idinku ka taliya madaxweyne iyo ku-xigeen iyo sarkaal iyo baarlamaan intaba ka noqda laakiin waxaanu rabnaa gobolada tani inay u noolaadaan sida ay hargeysa u nooshahay oo maamul goboleedu leedahay garowe u nooshahay meesha la yiraahdo jawhar u nooshahay meesha la yiraahdo baydhabo iyo kismaayo iyo meesha la yiraahdo galmudug dhuusamareeb ay u samaysteen systemka saasaanu rabnaa dadkani inuu u tashado waxaan idinka codsanayaa halgan dheer baynu ku jiraa bulay wuxuu yiri buska dooxada doonaysa inaad burdhaysaan anigana bicid joojinta igu badisaa xabaday reerka kan ugu badisaa cidina ma toojar garayn karto waan hubaa inaynu ku guulaysanayno halganka laakiin waqtigu qaadanaya uma cadayn karo waxaan u rabnaa inaynaan kala hadhin ilmaada rayaal waagii hore fardaha lagu dagaalami jiray fardaha aroortii faraska sunaariga iyo ka wajeerka ahay orodka weysman yihiin oo weysaan laakiin duhurkii markay tahay way kala hadhaan faraska wajeerka intuu daalo oo dhiidu dacu leexdaa faraska sunaarigana markaas uu ka cadin iyo dagaal cusub bilaabaa waxaanu ku jiraa dadaal waynu ku guulaysanaynaa haddii halkanku sii socdo waxaad laga yaabaa inaad aragtaan mid idinla socda oo maalin dhow meelaan munaasib ku ahayn taagan weligeedana dhici jirtay arrintaa waxaanu u baahanay inaynu ka dadaalno waxaan rabaa oo kale inaynu isku baraarujinno magaalada inaynu degannahay innagaa leh 100 sano aynu dhisanayno haddaynu duminayno ka dhex dagaalamano iyo haddaynu koonayaasheena ka dagaalamano waa hawl inoo taalla laakiin ilmaade rayaal marka qof leena ka dilo ama wiil leena ka dilo ama gabadh leena ka dilo afarta shirkadood ee xoogaaga lacagta inoo taalo ee intan adeeradooda iyo awooyaashooda ay leeyihiin inaynu kafarka kala soo degno oo dumino ilmaade rayaal halka inoo noqon mayso hantida taalana idinka ale ka shaqeynayaana waa idinka kala jabayna ku noqonaysaa waxaanu u baahannahay dagaal baynu ku jiraa wajigu doonu yeelanayaa annagu markaanu daadiina ahayn xabadda kama aanbiqi jirin malakumadna kama aanbiqi jirin 20 jir baa halkaas shirkaan garaacayo hooyadii walaasha lagu agdilayo waynu ka gudubnay fayskii kicinta iyo mudaharaadka waxaanu u baahannahay balaynbii inaynu gudubno xaalada milatari baa loo gudbayaa nin walba bajaaj baa tirada hooyada nin walba waxaad helasid aabaha iyo hooyada waad ka helaysaa haddaa 5 kun doontid haddaa 4 kun doontid haddaa dhoof doontid haddaa dukaan doontid haddaa bajaaj doontid adeer qori $1 ma aadan waayin sababa shirkaan u garaacidna ma jirto maalin kasta dumarka iyo carruurta la idinku duldilo annagu meelo kala duwan baanu joognay
waxaan u mahadcelinayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo dadkiisa dareenka la qaybsanayay wuxuu idin la magac rabay oo maqlaaya sidoo marbo sidoo maqan yahay baaqiisi iyo tii gudida iyo dareenkiina baan ku nimi inta maqayna way imaanaysaa taladuna wayna ka dhaxaysaa suurtagal ma aha taladeena qof maanta isku dayi kara bahda baa la yarhaan qarorkeed looma taliyo ninba wuxuu doonayaa isaga iyo xaaskiisa iyo afartiisa caruurta waxay ku noolaadaan inuu gobolada SSC ku gumeeyo wallahi baan suurtagal u noqonayn wataan idinku yiri hadalku ima qorra waana badiyay aad iyo aad baan idin salaamayaa waynu wada joognaa waynuna tashan doonaa mar labaad waxaan idinka codsanayaa ilmaadayaalow halganka aynu ku jirno hayeelinina in la suuro xumeeyo ninkii loo jiray Siciid Duldul iyo maaqa wax loo jiray oo reer sanaaga ragii gobolka u dhashay sanaag fadhii jiray wuxuu sidii lagu dafiray oo nimaatay lagu diiday oo duudii xigaalka ah duhur laga qaaday abtirsiyo doon hadiye jeer hawda baldegina maxaa hadalka kaan duray lahayn adeeg ku diiday waxaynu u baahanahay halganka aynu ku jiro Soomaali Maxamed iyo Ilaahay baa raali ka ah waxaynu ku ilaashanaynaa sharafteena ta Soomaaliyeed ta dadka iyo dalka iyo diinta waxaan la dagaalamanaa maamulka Hargeysa innaga iyo Isaaq hadii ay daaro Ismaaciil iyo Isaaq hadii ay ka hadho 20 qof mana kala tagayaan cid xumaan ku dhex gali kartaana ma jirto Soomaali badan oo meelaha ka soo kufacsan arkay waxaanu rabnaa siyaasadeena inaynu iib geyn karo aynu doonayno waynu u fadhinaa waynuna jeexanaa halkan wax fara badan iska oran karimayno aan baraarujin iyo wacyigelinahayn waxaan idin cadaynayaa hawsha aad ku jirtaan Soomaali 4.5 bay wax ku qaybsataa hawiya diyaar idinku ah inuu ku taageero daarooda aad ka dhalateen baa diyaar idinku ah Isaaq baa diyaar idinku ah hadii baydankeeda leeyahay inta aynu dariska 700 kilomitir daris ka nahay waxa diyaar idinku ah raxan weyn waxaan rabaa inaan hadafkiina la idinka suura xumayn oo la idinka dhigin laba reer oo ishaya oo xaalado hoose isku haya siyaasadaha ay ila isticmaalayso SNM baan rabaa wax yar inaan idinka sheego idinka Ilaahay baa idinka koriyo xabadii la idinku qabsaday khasab laakiin siyaasad iyo isku dir iyo furfur intaas dhibaato idinka la idin isticmaalaya inay habaabin samayso xagga iyo hadii baydankeeda god qaboobe iyo hadii baydankeeda ciidamo lagu waxeeyo xabad laga bilaabo halka kan wax laga bilaabo qorshayaal noocaas ah socda magaalada markii ciidankii ka baxay banaanka kaga yimi waad ogtihiin waxa soo galay ciidamo inaga niman saraakiila waan magacooda idin sheegi doono dhalinyarada la socotaan inta tan walaaladooda iyo ilmaadradooda yihiin waa ina ducaale dheeg ina cambaashe fool hawiye iyo kuwa la mid ah dhalinyarada ay wataan kuwa intiina halka ka fadhiday waxay wada yihiin ilmaadar iyo walaalo ruma waxaan rabnaa inaad israacdaan meel aanu idin wada jahayno waxa la isku dayaa idinka in la iska hor keeno طبعاً أي بناء كذا وذا تاسمه دعسنا كشقينا نجانا وشوقنا هنا أتكدر عشان قفل رئيسية إلا لا يسكون فته
ama wadii baydankeeda leeyahay maanta dhalinyarada gudaha ku jirta oo aad ogtihiin oo ah kuwii hadii baydankeeda leeyahay ahaa hadii baydankeeda leeyahay nimankii gobonnimo doonka ahaa iyo kuwii hadii baydankeeda leeyahay saraakiishaas u shaqeysa maamulka aynu sayno u shaqeysa dhalinyarada ay wateen oo magaalada ku jirta waxaanu rabnaa inaynu jaayno waxaan u sheegayaa qof kasta oo dan gaar ugu jira maamulka waqooyi ka jira cid siyaasad ugu jirta anaga nooga sheekay kartaa ma jirto oranaysa siyaasad baan ugu jira Hargeysa dana gaar ah loogu jira ragga danaha gaarka ugu jira waxaan u sheegayaa waxaanu idin haynaa hanti aan qasnadihiinu qaadi karin oo akoomadiinu qaadi karin oo maskaxdiinu qaadi karin oo ay oo la oran hooyada yaabaa ku soo jiri ilmaade rayaalo waxaan rabaa inaan nimanka aan fariin u faro ha noqonina dhigad tolkiin lala dhaco talada budiga ka noqda noo kaalaya ummadda tani ma yeeli karto halgankii ay soo bilowday 1800 iyo dheeraadkii oo gaalo wadanka laga kiciyay maanta iyada in la yiraahdo ma fakari kartaan anaga fakarayna aad iyo aad baan idin salaamayaa wabillahi tawfiiq